studio waxay la fadhiya Farax Mucallib oo ah hogaamiye ku-xigeenka xisbiga Wiper Party isla markaana musharax u taagan xildhibaanimada Garissa Township. Farax soo dhaw marka hore bal nuxurka ugu weyn ee arinta muranka ka dhaxay labada dhinac muxuu yahay nuxurka bizabd waxa weeyaan waxa la isku haystaa codka dhici doona 7 bilood maanta from now 7 months 7 bilood adii ayaa naga xigtaa doorashada aan boobno oon shubanna noo ansixiyey iyo maya ma ansixinayna maxaa in badan oo horaad boobtay macnaheedana waxay leeyihiin hal la ogolaado wax la dhaha manual maxay ahayd voting manual voting waxa weeyaan qof inuu intuu istaago qaranka uu ku xariiqo oo yiraahdo hebel baa vote oo register la hordhigo arrintan waxay ahayd arrintii burburkii 2007 2008 wadanka ka dhacay oo wadankii uu ku sigtay inuu sidii Soomaaliya oo kale uu noqdo farax ka baxay ayaantaas ayaa go'aanka la gaaray dastuurkana lagu soo alifay oo lagu soo kordhiyey in doorasho ay u dhici doonto si digital leh oo ay kombiyuutarada la isticmaali doono oo wax la dhaha BVR oo sameynayaan entire data oo nin kasta oo doorashada gali doono ay ku qoran tahay iyo waxa la dhahaa voter identification EVID marka kaas waxa weeyaan waa midka suulkaada aad ku muujinayso waayo marka hore registrationka lagu sameynayo suulkii iyo sawirkii iyo wixii oo dhan ayaa la hagaajinaya oo data banki la gelinaya marka hadduu qof uu vote gareeyana mar kale ma vote gareyn karo haddii kii laga bixiyo meesha oo la dhaha waxa weeyaan waa manual marka waxay doonayaan qofka dhintayna inay vote gareeyaan qofkii aan joogin ay vote gareeyaan ku shubtaan wax kasta oo dhanba qofkii meesha joogana la yiraahdo sawirkaada iyo wajigaada iskuma eko maxaa dha wax kale oo tusaya ma laha oo suulka ayaa tusi lahaa wax kastaba ka weyna iyaga waxay leeyihiin backup baan u isticmaalayna backup waxay u isticmaalayaan markay fail gareyso midka maaragtay digitalka kii Davidka oo digitalka oo markii hore voter identification ka beriga doorashada soo dhaafnay tabankaasa dhacday way wada fail gareeyeen all of them مثلا Northeastern Province Garissa oo kale way fail gareeyeen tii 2013 markay fail gareeyeen way shubteen waxa loo xishoon kareey bay shubteen oo rag madaxa wadda baarlamaanka ku jiro oo aad u sasareeyo waa laga badiyay doorashadii oo war iska cadweeyaan marka wixii bay doonayaan hadda inay haddana mar kale ku shubtaan mucaaradkana waxay leeyihiin maxaa loo oranayaa dimuqraasiya jirta oo waxa nidaam dimuqraasiya lahaan ugu dagaalamayna oo aan leenahay anigu ilaa kamid baan ahay ma soconayso dayba saa noqonayso aan iska shubto markasta yeelinayo laakiin xisbiga Jubilee waxay ku andacoonayaan oo ay leeyihiin dastuurka kama bedeli doono wax qoran marka yaani qodobka aad ka doodaysaan Soomaha wax dastuurka aan ku qornayn oo aad doonaysaan hadda in dastuurka lagu ziyaadiyo waxa waaye horta taa sharci ahaan baa loo hagaajiyay the law was created waxa hadda amendment ku sameynayaan waa the law amendment hadda ay sameynayaan waa sharciga oranaya laazim doorasho in lagu sameeyo digital oo maartay waxba aan la boobi karin oo ninka badiyana uu badiyay ninka laga badiyana laga badiyay tii weeyaan mid ay maartay ay doonayaan ay leeyihiin taa kaliya sharciga aan ku soo darna in la isticmaali karo manual kii hadii gacanta la yiraahdo hal la isticmaalo macnaheedu waxay leeyihiin markay haday fail gareyso digitalka marka waxay ku qasbi doonaan digitalku fail gareeyo they will make the digital fail hadduu fail gareeyana way shuban doonaan marka waxa la isku haysto waxa weeyaan aan boobna mar kale oo aan shubanno iyo baarlamaanka ay ku haystaan wax la dhaha tyranny of numbers majority ku haystaan oo ay marsadeen laakiin mar haddii dimuqraasiyadii maartay meel laga dhacayo maxkamadda waan tagnay waxaan shaki ku jiray maxkamadda ay tuuri doontaa banaanka tuuri doontaa waxay oran doontaa ma soconayso this is the most reliable system ka oo maartay lagu kalsoon yahay adduunka oo laga isticmaalo waa digital marka digital ka la isticmaalo hadda digital ki wax kasta ku isticmaalna mishaarka dadka la siinay shaqaalaha dawladda baa lagu isticmaalaa bangiyada baa isticmaala lacagtaada inta ka gashtaad meesha doonta kala bixi karta wixii adduunka oo dhanba ka shaqeynayay oo bacmisirigana ku shaqeynayay shaqaalaha dawladana ku shaqeynayay wax kastaba ku shaqeynay baasaboorada airportka ninka soo galay ninka ka baxay ku shaqeynay ay waxay leeyihiin maayo waa inuu halaabaa la arkaa marka halina ogolaado inaan qalin intaan qaadano waxaan doonanaa iska qororno doorashadii hadda bilooyin baa ka dhiman Raila Odinga oo xubnaha ugu sarsareeyo code ODM na wuxuu dhahay
anagu waxaan doonaynaa nabadgelyo iyo cadaalad haddii cadaalad ay dhici weysana wax doorashaa ma jirto aadan ducaale isaguna oo hogaamiyaha aqlabiyadda oo baarlamaanka Jubilee xubnaha ugu sarsareeya ka tirsan wuxuu yiri doorashada looma joojin doono qof marka taa macnaheedu soo ma ahan in cabsi dadka ay muujinayaan xataa in 2007 wixii dhacay dib u dhacaan cabsi weyn baa la muujinayaa cabsidaana wax laga qaban in isbedel uu imaado horta kulli meesha caalamka adduunka oo ku kacay inta doorasho dhacday hadda oo mucaaradka ay ka guuleysteen maxaafidki mise dadka ku sii jiray markii hore kulli waxa la isticmaalay digital waxa lagu isticmaalay Senegal oo Diouf laga badiyay maxaa magaciisi Wade Abdallah Wade laga badiyay waxay ka dhacday Nigeria oo 78 milyan oo qof ay codayeen annagana 12 milyan waxaan ku hasaabtamaynaa ay tahay oo ku soo galay ninkii Buhari la yiraahdo waxay ka dhacday Cote d'Ivoire markii Bagbo intuu hadana xukunku isku jiido waranaya ilaa waan reebanaya marka horta meel alla meel ay ka dhacdo waxa weeyaan cadaalad ayaa ka muuqata inay dhacday ninkii laga badiyeen jid kale ma haysto inuu xukunka wareega mooyee adduunka oo dhan hadda doorasho la ogolaanayo oo digital ahayn ma jiri doonto marka hadday rabaan sidii maaragtay DRC oo kale Congo Kabila wuxuu iskaga qabsaday مثل سيدي ما أرتب بروندي أو كله وذكرنا اللي يقول له شعب كنا معارض كنا وإحنا دليل وإحنا كلفية لا قدي ويود له استعمال الدونان كان الدونان هي كو they want to create what's called a legal coup يعني انقلاب شرعي يصير ما هذا النظام كيف يلو بوبيا ما دعي دونت مركز هذا من خصوصية هذا ذكر كيف يدي مكمدة وهدو ديجيتال جري لها مجال جالس مركز ورسيد رئيسي لما كنا يستحتوجي هذا المسؤول له لما كنا يتطابق الخبر المكبري لكن دي نمبرز كوبوس كيرا أنا جستيو لستي مع اللغة الفريقة أنتي لو ترى جل مثلا أنا ما نكذب التيجي كلمة وحبيتش أنا كسمين كلمة ونكسر جدي كان الوقت ماشي هذا شرعي أنا وقلاني لكن ما دام منك وحنا الصوماليين حلو إن اللودي حزبي إنك لو كتر سنة لا ما أرتي أقول درصدي أو لا شرطي أو مركب مسكر عيدي هاي حنا هنين مراح هذا ماشي كسر جدا كم بدلي كرتان إن ما أرتي إسكباك بيجوا بروح إسكير حجر لكن الله بالله حنا نقول مد الإسلام في ذاك الصومالي ده كل مخدم أو ترتيب النقطة هذه واحد سميسي نسيب حما درسي مثل ما أرتي وكفى الاستماعين إذا هو كل مسكرات بيسمين غضب لكن مهمة وحويا ما دعي دونت أنا شفته معاك والله هي وهذا كان جار صدق يسويين يلو ولا يقبل لكن ورغد جوشة أنا بلقط بدو أنا محيه هذا جارس وهذا فهمت السماء متى هي جارس أنا بكوشية مركب مهمة وحويا بدكم حساب تم يوحنا عن حد دونا وأنا قانا سيد الله هذا لكن أنا ما أكون حد لأنه أصلي نقعد دونت نقعد هاي أنت صبل رما كين يدا أوجد منه سياسي وينها تايرمان سوماليا انت بدن واد كهدشا دورشا سومالي سو جرتا markii afraad dib u dhacday xubno baarlamaan oo beesha caalamka ay yiraahdeen ayaa jirto in la ogolaan doono madaxtinimada u codeeyaan dad baa ku dhintay Kismaayo doorashada darteed cadaad qof baa lagu dilay rabshooyinkaas dhan dhacay soo ma muuqato in Soomaaliya rajabeel ay ka jirto shacabkuna ay maartay rajada ay ka muujinayaan aad u yartay markii afraadna doorashada dib ay u dhacday waxaa maamaha waxaa jirtaa af ingiriisi oo oranaysa ninka doqonka waa ninka fal intuu sameeyo ku celceliya falka asage natiijo ka duwan midda usoo baxaysa markasta inay ka sugaya inay ka soo baxdo oo ka filanayo a fool is somebody who does an act and keeps on repeating it expecting a different results or different results macnaheedu waxa weeyaan god baa laga qaninay lugti baad ku celinaysaa haddana adoo isle marka dambe lagama qaniini doono maski uu ka baxay mise wuu dhintay leh Soomaali dad maaragtay taariikhda ka faa'iidaysanayo ma aha Soomaaliya 47 sano laga joogaa markii ay ku bilaabatay masiibada iyo dhibka hadda ay ku sugan tahay waa markii nin madaxweynaha lagu dilay magaalada Laascaanood oo nin askari u ilaalinaya isaga أنت قولي له رستاجي أو كتير يحبذ نك وحنا نك ودليين وحويان تواشيد البرلمان كأمر كهذا عادي
yaa nin asaga qaraabadiisa ahaa meesha hadda gobolkan hadda bari la yidhaahdo oo puntland ka mid ah laga shubtay codkii cabdirashiidna ilaahay u naxariistee nin ahludiin ahoo dhibkaas iyo waxa aanan ku jirin buu ahaa laakiin dadka ka shaqeynaya SYL Somali Youth League ayaa ku kacay falka asage isla iyagaa ku kacayaan falka xukunka markuu cabdirashiid la wareegahay doorashada ugu xalaalsaneed oo ugu qiimo badneed oo Afrika ka dhacdo waa midii uu xilka kala wareegay cabdirashiid ninkii la oran jiray aadan cabdalla Usmaan doorasho xalaal baa dhacday waa laga badiyay nin kasta codkii uu helay oo dhabta ahaa ayaa loo xisaabay markii laga badiyana salliga intuu geliyay wuxuu xukunku wareejiyay nasiib xumo 2 sano ka dambe dadka ka shaqeynayay yaa waxay bilaabeen inay shubtaan codka la shubto marka fidnada waxay ka bilaabatay cod la shubto haatan waxaa dhacday Soomaali inay ka dhacday doorasho aanan weligeed adduunka meel ka dhacday aanan jirin dad yar baa la soo wadanaya nin baa la ansixinaya wax aan jirin baa la isku magmoogaya dadkii xamar joogay iyo yaa hadhow aniga dooran doona madaxweyne soo nin kasta u gurahayay waxaa ka dhacday doorashooyin wax lagu tilmaamo oo maxay ahayd way dhaaftay marmar baad xornaysa way xuntahay waxan xumiha u gafin maxaa wixii ka soo xun maxay tahay madaxweyne baarada Soomaaliya iyo tadakhulaadkii ajnabiga ay ku sameeyeen tadakhulaad aan caadi ahayn yaa lagu sameeyay oo waxa weeyaan wadamihii jiraanka ah yaa lagu ordahay laga doonayaa in maartay kalsooni laga ansax oo wali gabar baa dhaxawda oranaya hebel ha soo galo ee hebel baan anaga rabnaa ee hebel baan anaga rabnaa sheekadii way ku jiraan wali faadin Soomaa marka xildhibaanadii oo dhan waxa weeyaan dad ay dadka wataan nidaamkii loo hagaajiyay goboleentana waa sidii aniga hadda ka hor 2004 ayaan qoraal dheer aan ka jeediyay oo ahayd Soomaaliya in lagu sameeyay wax la dhahay disintegration of state and society qabil inta la isku dilo ee burburi gabigeeda mujtamaci uu burburaya balkanization in la dhahdana waad garsama haddana marka la dhaha marka ugu dambaysa ay noqoto in wixii oo dhan la laqo waad faasama to be divided by the countries in the neighborhood hade wala isku diray dadkii qabil bay noqotay oo loodiyaal la hagaajiyay nin kasta oo dhanba ijaazada wuxuu doonanayay sidii bariga hore waqtiga ay hore jiri jirtay ijaazada ninka weliga loo tilmaamaa loo doonan jiray adisba ijaazada loo doontay 5 gobol baa la hagaajiyay ma 5 baa mas'aali horta 6 waay waa 6 baa la hagaajiyay mid kasta badda uu ku xiran yahay mid kastana Ethiopia xuduud la leh waa faadin Soomaa mid kastana Ethiopia xuduud la leeyahay macnaha waxa weeyaan waxaa la hirgelinayaa qoraadii hore uu yiri Haile Selassie there is nothing called a Somali nation these are just tribes who are part of the Ethiopian empire imperatoriyada Ethiopia bay kamid yihiin uu yiri waad fahamtay Soomaa marka Ethiopia maadaama ay bad haysanin Eritrea ka xiran tahay mid kasta in toos loo hagaajiyo dissolution waxay ahayd disintegration of state and society balkanization la sameeyo gobol loo hagaajiyo dissolution marka dambe la sameeyo la laqo marka hadda waxa weeyaan wixii scriptigi un bay wali lagu jiraa Soomaaliya doorasho kama dhicin mana la sugay inay ka dhacdo mid xalaal ah waa laga badiyay marka hore odayaal salaadiin baa wax magacaha soo qorqoray hadda waxa la yiraahday guddi baa qoraya ee dad content ku meelay maxaa waxaan ka soo kale laakiin ninka uu tagay content ku soo qoranaya أنا دان ربط إنتان استجان قصة قرنية كنت كرايتيريا جي سيستم كله قصة قرن لها لا بسمين نكستر حالي إرجاديسة إرجادو وكان صدق مركا كيل الله روح نوعي إرجاد سيد كلي وسوقرتي وكان سنة خلدات بكر بعيس سوماليا خلدات كينا وحويان ولي وحكوف فكرة حتى تاريخ أنتو فهموا ورشلي وحكوف بربرني عضلك على شبته فرضي انت توصل كده مع دي عندنا ان نكون بربر كده ميليتري بهدنا ماضي نين ميليتري ها اوسك ودني ها لكن دي ميليتري ما بوحين كره ماشي شبلك وددك لا سو دورتي ما هن وددا لا اسق ودني بها المهمه waxaan ku soo wada waxa weeyaan Soomaali waa inay taariikhda fahamtaa waa inay mu'amarada gobolka jirtay fahamtaa waa in qarankii si dib loogu soo celin lahaa oo sharaftiisana loo sugi lahaa oo shakhsiga aan loo xisaabtamin ilaa madaxweynaha imaanaya جابش إنه بحسوس كده يا كوكلا إيمانية إنه بحسوس كده يا كوكلا إيمانية ضد كم عيال وده بحي نكس نارس بوليه وما سنتح هذا ما سنتح